weligaa ma isweydiisay sababta dadka qaar ay mar walba uga adkaadaan dhibaatooyinka halka qaarka kalena ay had iyo jeer u niyad jabsan yihiin? haddaba si aad u fahanto waxaan kaaga sheekayn doonaa qiso gaaban ee keliyahan kaa codsanayaa wakhtigaaga. waxaa jiray in lagu magacaabo Viktor Frankl oo ahaa dhakhtar cilmi nafsiyeed. wakhtigii dagaalkii labaad isaga iyo qoyskiisa waxa lagu xidhay xabsiyo aad u xanuun badan, isagoona kala kulmay waxyaabaan bini'aadamka caadiga ahi xamili karin. laakiin Frankl wuxuu xabsiyadaa ku galay niyad ah inuu noolaan doono. buggiisa wuxuu ku qoray arrin aad u xiiso badan, isagoo yidhi si aan u badbaado waxaa qasab igu ahayd inaan quruxda ka helo wax walba, xitaa waxyaabaha aan muhiimka ahayn, taasoo dhiirigelin siinaysay. wuxuu sidoo kale ogaaday in marka dadku ay waayaan micnaha noloshooda ay sidoo kale lumiyaan doonista ay nolosha u qabaan. kadib markii uu badbaaday wuxuu aasaasay laan cusub oo cilmi nafsi ah oo la yidhaahdo logotherapy, taasoo diiradda saarta in helitaanka micnaha nolosha uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee caafimaadka maskaxda bini'aadamka. sheekadu waxayna baraysaa hal shay: haddaad noloshaada micno u samayso, xanuunka, guuldarrada ama imtixaan kasta waad ka adkaan doontaa.